maxaan habeenku gorayooday haddii aan ka bilaawno lambarka 10aad magaalooyinka adduunka oo dhan ugu dadka badan waxaa ka soo muuqatay magaalada caanka ah ee New York City ee waddanka Mareykanka. magaaladan dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 20 milyan oo qof. sidoo kale magaaladani waa xarunta ganacsiga waddanka Mareykanka iyo xarunta waddankaasi looga aramiyo. magaaladan sidoo kale waxaa ku taala xarunta ay UN-ka ku shaqeeyaan ee qaramada midoobay. sagaalaad waxaa soo gashay magaalada Osaka City ee waddanka Japan. magaalada Osaka City waa magaalo caan ku ah wax soo saarka iyo warshadaha. sidoo kalena waa magaalada labaad ee ugu dadka badan waddanka Japan. dadka ku nool magaaladani waxay kor u dhaafayaan 20 milyan 130 kun oo ruux. maalinta sideedaad waxaa ka soo muuqatay magaalada caanka ee Beijing City ee waddanka China. magaaladani waa magaalada labaad ee ugu dadka badan waddanka China. sidoo kalena waa magaalo caan ku ah ganacsiga iyo wax soo saarka. magaaladan dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa inay kor u dhaafayaan 21 milyan 150 kun oo qof. kaalinta toddobaad waxaa ka soo muuqatay magaalada São Paulo City ee waddanka Brazil. magaaladani waa caasimadda waddankaasi Brazil. dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa 21 milyan 200 kun oo qof. waxaa ka soo muuqatay Mexico City. magaaladani Mexico City oo magaalo madax u ah waddanka Mexico ee dhaca koonfurta America. dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa 21 milyan 600 kun oo qof. waxaa ka soo muuqatay magaalada caanka ah ee Mumbai City ee waddanka Hindiya. sidoo kale magaaladani waa magaalada labaad ee ugu dadka badan waddanka Hindiya. dadka ku nool magaaladan waxaa lagu qiyaasaa 23 milyan 140 kun oo ruux. kaalinta afraad waxaa ka soo muuqatay magaalada Shanghai City ee waddanka China. waana magaalada koowaad ee ugu dadka badan waddanka China. sidoo kalena waa caasimadda labaad ee waddanka China. magaaladan dadka ku nool ayaa waxaa lagu qiyaasaa inay kor u dhaafayaan 24 milyan 750 kun oo qof. kaalinta saddexaad waxaa soo gashay magaalada Seoul City ee koonfurta Korea. magaaladani dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa 25 milyan 620 kun oo ruux. kaalinta labaad waxaa qiimayntan ka soo muuqatay magaalada caanka New Delhi City ee waddanka Hindiya. magaaladan dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa 27 milyan oo qof. waana magaalada ugu dadka badan waddanka Hindiya iyo magaalada labaad ee adduunka oo dhan ugu dadka badan. kaalinta koowaad waxaa qiimaynta ka soo muuqatay magaalada caanka ah ee Tokyo City ee waddanka Japan. magaaladan waxaa lagu qiyaasaa dadka ku nool in ay kor u dhaafayaan 37 milyan 300 kun oo qof. waana magaalada koowaad ee adduunka ugu dadka badan. haddii ay gayaan axdi wada